waxaa maalintii afraad ka bilowday magaalada Taleex ee taariikhiga shirkii Khaatumo 2 ee beelaha deegaanada Sool Sanaag Yacayn kaasoo maalintii afraad galay shirweynahan ayaa waxaa ka soo qayb galay dad kala dhaafay 1500 qof kuwaasoo iskaga kala yimid daafaha adduunka iyo waliba deegaanada SSC dad iyo kala duwan ururada haweenka kuwa dhalinyarada iyo dhammaan waxgaradka iyo cuqaasha ayaa si weyn u lafaguray talooyin kala duwan oo ay u arkaan in shirku uu ku najixi karo talooyinkan ayaa dhamaantood waxay ka miisnaayeen in dadka ku dhaqan deegaanada SSC ay helaan talo ayagu ay madax banaan yihiin isla markaana ka madax banaan dhammaan maamulada hareeraha isku soo wada duubo shirkan ayaa wuxuu galayaa waqti aad iyo xasaas u ah maadaama wajigii kooban maanta si rasmi ah uu soo xiray gudoomiyaha guddiga shirgudoonka shirka sidoo kale waxaa halka ka hadlay caaqil xaaji maxamuud cumar cami oo ka mid ah cuqaasha deegaanka Buuhoodle isla markaana si weyn u taageeray shirka wuxuuna caaqilku sheegay inuu la mabda yahay dadkiisa iyo dalkiisa يا وصل من أسباب السلام وخاف محمد عين الله يا الناظر في علمي تذكر حش تذكر أنت اللي مستقبلين أيها العلماء يا من الاستحلام يا من الكسر بس يعني أنا هذا العلم أنت ما تزال sidoo kale waxa iyaduna halka ka hadashay Aasiya Xuseen oo iyaduna ka socotay jaariyadaha dibadda taasoo ku hadashay afka haweenka isla markaana qeexday rabitaanka haweenka deegaanada faraar qaadi aad u fara badan oo naga shaqaystay hadaan eegto wadankeena asoo dhimatay soo marinta wadanka joogay waa meesha ugu liidata buubahanteedkeena waa dhulka waa meesha ugu liidata boqolada kale ee daristeena ah way hormareen waxay samaysteen dambayn bay samaysteen dhulkay samaysteen inakii dhulkeena waa baabaasanyahay dadka u maqanna weynaka حتى هو عبد الضايع وحباش ما يستان مستقبل برها وأتذكر بريت ولا جرى وياه كذا دروين كذا نقولنا إذا كانوا بيستاس ما نقول هذا وهذا كيسا حتى ذا حاجة عظمات كتير كتير بيقطع وهذا كيسا قبل كسمة الجزية الماء وهو رياء وجود ما يسا وأنا واقف ما دره وهو ما دره ودباته ورياضه كذا قبل شتيرة بياش شتيرة وكان وحنا وقفته مبان وجود هي يوم ما يستاهل كذي إلهي يقوم بنسيه يعد بنسيه عقل بنسيه لا قبل فوقنا أنا كنت نقدر نقولنا نقدر بسنة waxaa shirka soo afmeeray Dr. Ali Ciise Cabdi sidoo kale waxaa shirka soo afmeeray Dr. Ali Ciise Cabdi oo ka sheekeeyay ajandaha shirka isla markaana ku tilmaamay in ajandaha dhabta uu yahay ka halkan ay ku soo gudbiyeen ururada dhalinyarada haweenka ciidamada iyo dhammaan shacabka deegaanada SSC isla markaana aysan jirin ajanda hore ugu degsanaa shirka wuxuuna sheegay in aaraahda la ururiyay isla markaana laga soo guuriyay talooyinka shacabka SSC lagu wadi doono shirka سلام شرف كلهم وعن كل جويناهي صدح الأبطي عشي هذا الشيء كما ينوفرنا وحاي نوصل تلك شيء إلى أدونك وشهرنا ظاهر الشركة كان بيشوه وحا حقيقة الطاين سؤاله سؤال نغنغني مانتا مغاشو كهذا شيء وياشا عنديكو كهذين وشذا الله يهوينك بيشو كهذا شيء شريته ويردو كهذا شيء إلي موجسي دمانتد ذكاكم كسوغان إلي مليسانيهين وكل ليسانيهين باهيدا لوغبو سيدي لوغب الحنادباتوي كالة الماضي وحانو هذا دوري إلان أوغا غيحو
سؤال سور نقنقونيسي ورانيس شركة محل ومتوقع محل قوة هذه شركة أجنديه سواء واضحة وحا شكل هين إن أجنديه آني بلوك قدد فلنتا يقدد شرية صبانكا يبغلي اللواتنكي أغنيهن كغربجوغ برشو لما تكون مبيش يأخران يسمى فينا دافي إن أجنديه يبواني لكن وعن دون يانا دلقرة أن أجنديه ينكا عندي يدكي ناقل كسوغن واريا معلومات بخيئة ayaa waxa uu shir ku socod doonaa magaalada Taleex gaar ahaan geedka bardaha loo yaqaano ee gogasha iyo madasha taalo gudahaan waxa ka soo qayb galay qaybaha bulshada kala duwan Salawaan Xaashim Soomaaliya